بسم الله الرحمن الرحيم وناكسن أخيرتا هودا نغا داوانaysa meel kasto caalamka ka joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkii waayaha qurbaha oo saacadahan oo kale aad Kalsan TV si toos ah uga daawataan stuudiyaha ku leeyahay magaalada London waa barnaamij qubano isla markaana ku eegno arrimo kala duwan oo bulshada isla markaana aan isleenahay markaa wax badan ay ka tarayaan bulshooyinka Soomaaliyeed toddobaadkan iyo waayaha qurbaha waxaanu ku eegi doonaa in badan arrimo aan isleenahay waad ka soo hadasheen marka la eego arrimaha qoyska iyo guurka طبعا oo in badan aanu ka soo taataabanay laakiin habeenkan caawa waa arintu way ka duwan tahay in badan oo ka soo hadalnay waxaan isleenahay bal dhan kale ka eega dhankaas wuxuu noqon doonaa dabcan in badan baanu aragnay oo ka sheekaynay xaaladaha qoyska caawa se waxaan u fadhinaa oo insha Allah wixii tala ah oo ay qayb gali doonaan laba qof oo martiya oo dabcan idin bari doono bal qoys in uu guurkiisu nagaado in uu dheeraado in uu 10 sano 20 sano 30 sano 40 sano iyo wax ka badan inuu si silmiya oo nabadgeliya ku gaadho ubad qurux badan oo barbaara oo jaamacada ka baxa oo yaani wixii lagu soo tabcayay marka looga aayo in la helo sirta ku jirtay maxay tahay waxaan ku soo koobi karaa marka waxaan oran karaa in qoysku nagaado dabcan waxa marka dhalinyaro la yahay in badan waa la sheekaystaa marka dhalinyartu sheekaysanaya waxa kamid ah marka qaarkood marka wiilasha iyo gabdhaha is wareysanaya la weydiiyo maxaad u guursan weyday marka la yiraahdo inuu ama wiilku yiraahdo niyo wali gabadhii aan rabay mustaqbalka ma aanan helin ama sidoo kale bilcagsigeeda iyaduna tiraahdo wali wiilkii aan rabay mustaqbalka ma aanan helin marka waxa arrinka laga hadlayaa dabcan waa mustaqbal markay noqotana waa the rest of your life waa noloshaada inta ka harsan ama gabadhii aad la qaadan lahayd ama wiilkii aad nolosha la qaybsan lahayd arrin dabcan fudud ma aha taasi ayaa keenta marka qaarkood in dadku ay ka dhawaajiyaan wali ma aanan helin marka habeenkan caawa waxaanu isku day doonaa insha Allah bal inaanu eegno inaanu ku qaada dhigno maxay tahay furaha ama kiiga khuseeya arrintan qoyska guurka in salka loo dhigo in la aasaaso in la yeegleelo reer fogaada oo ujeedadii iyo qiimihii laga lahaa targetkii laga lahaa la gaadho waxaag aanu soo noqdo marka martidayda caawa barnaamijka waayaha qurbaha iga qayb galaysa aanu ku bilaabayo dhanka midig waxa weeye Rooda Cali Sheekh oo iyadu gabadh Soomaaliyeed oo kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee firfircoon kana hawlgasha urur Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Hero Somali Organization oo u ololeeya maaragtay haqabtirka ama si maaragtay haweenka Soomaaliyeed ee wadankan UK degan ay qaybtooda la xal ay uga muuqan lahayn bulshada dhexdeeda aanay uga qaadan lahayn waxa iyada ku sii dir doonta dabcan ururku intaa kaliya ma qabto wax badan oo kalena waa qabtaa aan u gudbo dhankayga bidix waxa fadhiya Ciise Dirow oo wada taqaanaan waxa weeye waa jilaaweyn weeye riwaayadihii u dambeeyay ama flaan u dambeeyay oo hadda lagu magacaabay Mirror Child oo wadankan Ingiriiska Soomaaliya iyo wadamo badan oo qaarada Yurba laga soo dhigay ayuu aan oran karaa wuxuu ahaa actorkii anigu runtii waan daawado aad baan maaragtay aan sidii iyo qaybtii kaalintii aan ku lahaa runtii aad baan aan u soo dhaweeyay filmkaasi dabcan wuxuu ka hadlayay un barnaamijkan habeenkan caawa halkan u fadhino oo ah qoys nagaashihiis dhibaatadiis see looga baxaa waxaag idinku dheerayn maayo waxaan jeclahay waliba habeenkan caawa inay barnaamijka nagala qayb qaataan waalidada Soomaaliyeed ee iyagu markaa qoyskoodu aw nagaaday aw dheeraaday bal qaybtii hay ka galeen iyo xogta ay hayaan inay dadweynaha caawa ay u soo gudbiyaan inaanu la qaybsano inay daayirta Soomaaliyeed iyagu markaa u heelan inay reer dhisaan ama ay yagaleelaan si ay uga faa'iideystaan waxaan jeclahay waalidada Soomaaliyeed ee saacadan TV-ga si toos ah u daawanaya in iyaguna kaalintooda ay nagala qayb qaataan marka aan ku bilaabo Rooda ku soo dhawo Kalsan TV studio-sa magaalada London Faisal aad u mahadsan tahay casiimada ay fayseen adiga iyo dadka kula shaqeeya Kalsan TV waa mahadsantiin way walaal Rood aad ayaan kaaga mahad celinaya aan u gudbo oday goore Ciise Dirow dadka ku yaqaanaan waxaan maray magacaas amaanta ugu cusub yahay soo dhawaatay barnaamijka sidoo kale waad mahadsan tahay Faisal adiga iyo dhammaan bahda Kalsan TV waana ku dhawaad waana ku mahadsantiin fursadda aad caawa ay noo siisaan bal inaan wax ka niraado arrintan hadda aad dabcan sharaxadeeda ku soo yar fogaatay waxaan jeclahay bal hordhaca waan kaga dhawaajiyay aan ku bilaabo Rooda oo dabcan iyada haweenkii halka nagal joogta matalaysana su'aasha horeyso oo dabcan kaga dhawaajiyay marka dhaweyto waxay ahayd Rooda in horta marka hore reer oo nagaado hadda si jilay macnaha in ujeedadii laga lahaa marka laba qof ay isguursadeen markay is dooranayeen mustaqbal fog bay iska lahaayeen oo ma wax kooban ma ahayn marka in xididada saa loogu aso reerkaasi mustaqbalka uu noqdo reer dheeraada maxaad is leedahay aasaas bay u tahay
بسم الله أساسك waxay ila tahay aniga in horta la fahmo guurku wuxuu yahay good guurka in waa naxariis wada noolaansho ilaahay quraankiisa noogu sheegay marka ilaahay quraankiisa wuxuu ku dhahayaa in xaaska iyo ninkeeda waxay isku yihiin maro marka macnaheedu waxay ka dhigan tahay waa wax ku keenayo comfort iyo protection marka haddii la fahmo waxa uu yahay guurka I think inuu nagaadi karo وهاي هذا جوري سؤالش طبعا أنا كفوجين جورك يعني النجاشيسة محا سببه محا أساسه محا حد الضوء horta runtii waa su-aal aada u weyn jawaabteedana u malayn maa in hal erey lasoo qabtay markiiba looga kaaftoomayo faysalow aniga aqoontayda gaaban ama fahamkayga yar haddii aan ku cabiro guur inuu nagaado oo markaa aanu faylgaro ama aanu yani dhicisoobin waxaa u sababa bacda qudratillaahi oo dee wax walba horta waa ilaahay qadarkiis dhowr waxyaabood haddaan isku dayo inaan mid wixii aan ilaahay xasuusiyo kasoo qabto waxaa ka mid a horta marka koowaad guurka naftiisa marka hore ee la galayaba horta ujeeddo in loo galay nidaamsan oo qofka uu leeyahay horta aniga maxaan rabaa reerkan dhisi doonaa inuu u ekaado taas waxaa looga badbaadayaa guur badan oo dee waan gaaray xilligii ama qofkani waa dee qof maaragta haye dhacjac isla markiiba dee markii horeba balaan iyo qorsho iyo wax xadka qofka uu leeyahay iyo adigu waxaad leedahay qofkani yani wax nidaamsan may ahayn taas oo dee marka hore la bilaabayo laga fikiraahi waxaan u malaynayaa inay waxay ka mid tahay waxyaabaha guurka adkeeya waxyaabaha sidaasoo kale keenaya in la isku raago waxaa ka mid ah in uu qofku garto qofkani wuxuu ka mudan yahay tanaasul baa ka mid a in wax laysla daayo haddii wax laysku qabto in dee qof labada qof ka midii markaa uu sii daayo dhaho kii markaa ku adag dhaha balhayo waayahay waxaa ka mid a xushmad iyo naxariis qofka in macnihii naxariis la siiyo marka waxyaabahaas iyo waxyaabo badan oo kale oo dee aada uga badan intan hadda sheegay ayaa waxa ay guurka ka dhigi karaan qadarka ilaahay ka bacdi inuu guurkii nagaado oo dadkii waqti isla gaaraan way jiraan of course dad badan oo labada qofba iska fiican laakiin intaa ay uga ekaatay oo dee ilaahay u qadar isla sii gudbaan laakiin haddana marka si kale loo fiiriyo qaladaad badan oo dadku sameynayaan haddii laga fikeri lahaa oo qofkani uu dhihi lahaay anigu maxaa nolosha ka damacsanahay in aanan lagu faylgaro ama lagu dhacin guurka ay u badnaan lahayd وهاجك واد ما صتها أو دجورة راد هذا نصور نقطة وحكي له واجهي أسبابها إن كم تهاي نقول كنا جادو حشمت يتناسل أن بريها عندما واد وقتها قصص كنا الصوماليات ده كام صارنا لبت تاجن يبربركا يفهمي لجنا نوع دورة صوت دورة هالله ديجو مثلا هم مركا يرينا حكي له واجهي أن أو دجورة تناسل كي يحشمت دي إنه حاجة ماشى أو كبحي أم أو يراد ما مكون مقطع ورنتا because I think sida hore u sheegay waxa waaye aboon uu sheegay si guurka uu nagaado waxa waaye horta guurka wuxuu yahay in la fahmo at the same time la fahmo mas'uuliyadda iyo xaqa labadaba qof ay leeyihiin mas'uuliyadda for example wiilka inuu og yahay hadduu maanta xaas yeesho inuu gabadhaas asiga ka mas-uul yahay uu masruufkeeda iyo daawadeeda iyo caafimaadkeeda iyo adiga guriga hooyada iyo aabeeda kasoo tagtay isaga mas-uul ka yahay gabadhina sidoo kale ay mataqaanaa guurkii iyada mataqaanaa ay tahay hooyadii reerka marka maadaama ay isdahay aniga kolley maadaama ummad burburtay oo intaasoo sano dagaal kusoo jirtay aynu nahay maanta qofka 30 sano jiro ama 20 sano jiro ma aha qof ma la dhihi karo oo nolol nagaad kusoo koray oo role models iyo waalidkiis iyo walaalihiis iyo nolol degan oo mataqaanaa uu ka baran karo waxa ay guurka tahay ma jiro waa dad qaxootinimo iyo kala tafraaruq iyo kala fogaansho kusoo koray marka waxa qof kasta wuxuu iska wataa wax oo idealistic ah oo run ahayn oo ama waxyaaba movie-ga aan ku aragno
qayaali Waa and mararka qaarkoodna badanaa oo dhaqan ahaan annaga Soomaaliyeed aniga waxaan isleeyahay anigoona qofna dhaliileynin waxaan ilownaa ma korino mustaqbalkii reerka. For example hooyaa tahay ma korinaysid wiil oo beri noqon karo mas-uul, waxaa korinaysaa wiil oo mataqaana wax kasta loo sameeyo oo spoil laga dhigo oo marka beri markuu reer uu yeesho mas-uuliyadda xoogeeda ama intee la egta ma fahamsana. guriga markuu taga marka wuxuu bartay guriga hooyadiis oo wax kasta looga sameey jiray, xaaskiisana marka u tago wuxuu u qaadanayaa waxba ku dhacay qaracan almost iyo disappointment because wixii hooyadiis walaaliis usoo sameey meesha ma yaal ilan isagaa mas-uul ah. marka dhibaatada meeshaasay already ay ka bilaabanaysaa oo isjijiid iyo tanaasulaad yaa yaraanayso. marka runtii point aada fiican baad kaga dhawaajisay Rooda. ma isleedahay markaa way ka maqan tahay meesha waddanka gudihii markaan ka hadlayno Soomaaliya dee ilmuhu 8 jir hadduu gaadho wiilka ama gabadhu yacni uma baahna tilmaan kale iyo toosin kale uma baahna, biicadii buu ka qaatay yacni fikrad dhamaystiran noloshu sa ay tahay iyo meesha u socdo waa ogyahay. laakiin qurbahan aynu joogno barnaamijkuna barnaamij waayaha qurbaha ma isleedahay waxaa jira laakiin waxa information la'aan ayna haysan da'yartii Soomaaliyeed yacni wiil iyo gabadh inta doonta noqdeen oo marka yacni qoyska ka soo baxayaan jacayl ka soo inay intay wiil iyo gabadh iskana isjeclaadaan inaan isguursano, laakiin mas'uuliyadii weyneyd yacni guurka oo bari ka maalin marka guriga la isku tago war sida ma baan moodinay tolo maxaan badanka gal maxay ahayd ma ku muuqata aad iyo aad horta waa sida ay tahay dhibka ugu weyn oo jira meeshaan waxa kowka ah dhalinyarada wadankii markay joogaan 18 qofka hadduu gaaro wuxuu isku arkay wiil iyo gabarba inuu yahay qof dhammaystiran oo dee xilligii oo asagu noloshiisa sii wadan lahaa gaaray waynaba ahaydba. halkan waxaad arkaysaa qof 25 sano dhaafay ama cagacagay oo haddana caruur isku haysta aaminsanayna sida hadda naftida abay sheegtay inuu qofkani isagu uu yahay qof inta noloshiisa ka dhiman inuu dee mas-uul noqdo oo survive oo wado oo asagu reer yagleelo qof yacni ma u muuqato sababo badanba ha u keeneen. marka waxyaabaha hadda dhibta jirtana waxaa ka mid ah dhalinyaradan ku koro qurbaha ilaa waxaan ka hadlaynaa saa sheegtaba waa nolosha qurbaha. iyagu Soomaalida ama haddii meelo isugu imaadaan haddii fadhi ku dir tahay haddii meelo maaragtay community-ga isugu imaado kala warqada tahay haddii ay tahay meelo dhalinyar inta badan iyagu xiriir wanaagsan lama laha dadka ka waaweyn. da'yartu ayagu unbaa isku soocan ayagu unbaa kuwo kale oo ajaaniba unbay galaan marka wax badan kama fahamsana dhaqanka. waxaa kaloo taa usii dheer inta aan ka aaminsanahay nidaamka ayagu inta ay wax fahmeen ay guriga ka arkayaan naftiisu ma ahayn mid ay isleeyihiin tolowkan armad raacdaa ku socotaa wadadan bale inuuba yahaa laga yaabaa mid xun oo haddii wax un ka qaataan ayaga burbur u keenaya. marka taasina sabab bay u tahay waana runtii sida dad badan waxgarad uba sheega ama cid kastaba fahamsantahay waxyaabaha qurbaha laga faa'iido in xushmadii labada qof isku haysa ay yar tahay in qofku marka hore waxa bilaabayaba isaga qudhiisu aanu information ku filan u haysan dee kan asagu maskaxdiisa ku jira iyo ka saxda ah ee loo baahnaa laba ay isdhaafsan yihiin laba kale yihiin. marka qoys laga hadlayo ama nolol waxay u baahan tahay horta aslan in lagu saleeyo diinta islaamka maadaama ana bulsho islaam ah. kay yaraanshaha la isticmaalay diinta islaamku waxay nooga baahan tahay in qoyska laga dhigo ayaa horta burburka qayb weyn ka ah. waayo haddii lagu beysgarayn lahaa ama la bari lahaa da'yarta waxay ahaan lahayd nafteeda xushmadii baa imaan lahayd qadrin baa imaan lahayd runta in la isku sheegaa imaan lahayd waxyaaba fara badan oo qofkani kaa mudan yahay in la fahmo oo qof kale uu fahmo oo xad celiyo dadka. marka hadda dadkii inta badan halkii loogu talagalay ayay dhaafayaan ama intii ay ahayd inay qabtaan ayaaniba half way ka sameyn maba sameynayba qofkii. marka niyad jab badan oo halkaas ka dhasha iyo dee gaabis fara badan oo yimaada ama qofkiioo ka gudbo wixii uu xaq u lahaa dee qaladaad badan sameynay islana sii quman weli ayaa waxaan aaminsanahay in iyadana qaladka qayb weyn ka tahay. waa gartay marka Soomaalidu waxay ku maamulada Rooday lama huran waa caws jiilaan in wiilku markuu ka caamo ama gabadhu markay ka caanto inay wiil raadsato ama wiilku gabadh raadsado oo dee mustaqbalkiisii meel dhigo waa waxa tan caaw ka hadlayna way waa laga maarmaan
information la-aantan aad labadiinu hadda ka dhawaajiseenna iyadna mid meesha taalla weeyaan oo dee ilmihii ama game ama wax kale ku mashquulshan yahay ama iskuul iyo yacnihii informationka ku heli lahaa biicada ku hareereysan aad bay u yar tahay marka waalidada soomaaliyeed ee caawayna daawanaya maxaad isleedahay yacnihii kaalintee waan ognahay kaalintay ka qaadan karaan lakiin maxaad tala ahaan aad oran lahayd koley aniga saan isleeyahay aniga waan sameyn lahaa ani hooyaan ahay laba wiilna waan dhalay oo yar yar marka waxaan isleeyahay berri hadday weynaadaan maxaan jeclaan lahaa as a mom inaan aniga iyaga aan baro horta abowsu u sheegay waxaa dad muslim nahay and dhibaatada ugu weyn waxay tahay dadka qurbada joogo dhalinyarada weliba waxaa jira confusion badan because diintii ilaahay waxa waaye waa mid qof kasta xaqiisa si mataqaanaa ku filan loo sheegay oo kaleer looga dhigay laakiin waxaa u malaysaa dadkeena inay dhaqankii uu naga xoog badan yahay dhaqan reer guuraa ah oo naxariista ay ku yaran oo nolol adag ay ahayd run ahaantii oo mataqaanaa adiga nolosha basigeeda markasta oo la bursanayo waxyaabihii markay noqoto emotion iyo feelings iyo waxaasba oo macno weyn loo yeelin intana waxaa waaye waxyaabahaasaaba kiiga ahbo nolosha dhanbo marka waxaan isleeyahay hooyooyinka one thing inay sameeyaan ay horta markay wiilasha korinayaan inay leaders ay u arkaan berri mas-uulkii tomorrow leaderkii tomorrow ama xag siyaasad ahaato ama xag guri ha ahaato inay diyaariyaan and that means in wiilka yarka ah laga hormariyo gabadha walaashiis oo dhibka dhan isaga loo hormariyo because waa nin rag waa inuu adkaado waa inuu mas-uuliyad qaado waa inuu gabadha kaga horeeyo exactly and dhaqan ahaan waa the other way around wiilasha gadaala marsanaa gabdhaha mas-uuliyadii gurigii nadiifskii suuqi laga soo adeegayay kaliya waxaan siinaa markay noqoto walaasha protection ahaan inuu wiilka walaalka marka waalid ahaan insha allah waxaan rabaa aniga inaan kuwayga yaryar aan baro inay leaders yihiin halka gabaroo la dhalatana iyaga inay protection u sameeyaan si tomorrow insha allah ay u noqdaan hogaamiyaasha berito runtii halkaas wax badan baa horta ka baxaya waxaan ku celcelinay ilmaha waxaa hala tusasaan hala yeelo waa saxa horta ilmihii in dee wadadii waalidka wadada quman in horta waalidka wax ku barbaariyo way tahay haddaanu waalidkan dad badan oo horta waalid ilaahay u qoray laakiin waxaa jira ayaga naftooda aan information waalidnimo aan haysan waan usoo laabaynaa kolley fikradadan waa sheeko aada u weyn oo bad ah laakiin waxaan hadda wax ka sheegnay runtii caruurta waalidka naftiisa oo halkan wax ku korinaya ama qurbaha ayaa waxaan anigu aaminsanahay in qaladka ayagu saldhigu yihiin sababta igu yihiin ilmihiiba dee halkii wax macnala ma joogo maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inuu hal qof oo waalidka kamid la nool yahay kii kaleetana dee si gardara oo banaanka ku joogo waa gartay waxaad kaa dhex galay waxaad xasuusinaysaa qayb ka mid a mirror jacayl filimkii ama riwaayadii aad dhigteen mooshinkana rag way ku mashquulshanay ninka kale cunugiisana xabsiga ku jiray absolute haye horta sheekadaas inteeda badanba waxay ku saabsaneed amba ay ku wajahan tahay oo lagu baysgareeyey nolosha qurbaha especially qoysaska qorshuuna wuxuu ahay sida haddaba caawan inta uga hadlayno sidee loo heli karaa qoysas badbaada oo dhibta fawdada isqaqabsiga yani isku dirka iyo rafaadka ka badbaada marka maxay sheegi kartaa ama muxuu sheegi karaa hooyo ama aabbo reerkiisii isagu soo burburiyey tusaale ahaan qaladaadkii reeruhu intay isku dul qaataan la sixi jiray hoos loo xali jiray ama uun si uun loo gudbi jiray ka ugu horeeya markuu yimaadaba qofku waxaa leeyahay maqashay dacska guriga ka dhaadhac marka hooyo ninkeedii xaqdarra ku dhaadhicis ku dejisay waa adag tahay inay dee ilmihii oo arkayay marka odaygu aabihii dhalay dee xaqdarrada iridda looga dhaadhiciyo wax badan oo ay ka faa'iidi karaan ayaa iska yar bale waxba ka faa'iidi karaan haddii dhinac kale loo dhigo khaladaad fara badan sababta cunugu wuxuu kusoo korayaa ama uu arkayaa isqaqabsi labada waalid ka dhexeeya wuxuu arkayaa xumeyn aabihii la xumeynayo amba dhinac kale haddii loo dhigo hooyadii la xumeynayo
marka naftooda waalidku mararka qaar waxay ila tahay inay habboon tahay waxyaabo badan oo jira xataa in ubadka dartood u daayaan oo ayagu ay isu samraan oo tanaasulkii uu soo noqdo haddii dee noloshooda ay diinta ku salaansan horta maxaa naga maqan xaggeen ka dhaqaaqi la'nahay aabbayaasha waan daynayaa naftooda marar badan qurbaha nafteeda inta la joogo way dhacaan family meeting ha noqoto dadku meel waa isugu tagaan community ha ahaato odagu waxa laga yaabaa kaliya intuu dhar isku soo jaakay oo ka qayb gala shirka beeshiisa amba ilma adeerta ama waxyigayga ka yar weligiiba ma aragba 10 qof oo macna dadkiisa dadkii dee isagu qofkani asal ahaan hadduu dhinto hadduu dhib gaaro hadduu shil dadkii u imaanaya dadkaba kama yaqaanba aabbayaasha waxaa looga baahan yahay horta inay ubadkooda ay ku xiraan dadka ay ubadkani ku abtirsadaan ilaa korios abtirsi lagama maarmaye oo haddaba habeen kasto xafladaha la qabtaa reer baa meel ku kulmay qof baa la soo dhaway war almiina wixii waaba la qabanayaa ubadka ha lagu daro ha la tusiyo inay dad leeyihiin kan adeerkaa waa kan awowha waa kan waa kaasaa kan walaalo kugu beegan yahay markii aad tagto meelaha dadku isugu imaanaya oday miiro baa intaa socda iyo islaamo gaboob kaliya abo laakiin haddii aan ka dhex galo oo because waxaad ka hadashay arrin aada muhiim u ah laakiin waxaan u malaysaa ummadeena Soomaaliyeed in dhibaato markay jirto waxaa root cause in la fiiriyo waa maxaa keeni karo annaga haddaanan basic xuquuqda laysku lahay basic ahayd haddii layssiinaynin oo maanta gabadhan xaqay leeda wiilkan xaqu leeyahay waa la ogyahay qurbaha qaladaadka ay raggeen Soomaaliyeed ay sameeyaan markii laga hadlo muku dhahay kulligood laakiin badankood markii arrintan laga hadlane waxa waaye waxa u malaysaa in inkirmaad weyd inay jirto intay taas jirteen waxa u malaynaa Soomaali waxa burburkan hadda heerka aan taagsan way ka sii daraysaa sababtu waxay tahay gabadhii haddii dhib dhaco waagi hore waxaa xulli jiray family labada dhinac oo diinteeda ku faraysan idinka dad fahmi weyseen qoyskaada la isku imaado and then so on haddii labada dhinac ay noqdaan dad runtii aanan rabin oo interestiga oo mataqaana sidoo familigaas ku survive garowlan aanan ka shaqaynin oo badan aynu ognahay in dhibaatada iyagaba ay koosgareeyaan oo masaajidkiina mararka qaarkood iyo wadaadadii ay xaqa niman kale always ay ka hadlayaan oo xaqi ay ka gaabsadeen haweenka maxaa la sameyn karaa oo xal ah xalku wuu adag yahay laakiin ani ahaan waxay rabtaa kooga hore in dhibaatada heerka gaarsiisan tahay because maalin kastaan ku aragnaa iskoolaadkan ku aragnaa airportadan ku aragnaa xalfadahan ku meel kasta aadid hooyaa kaliga taagan waxa marka aniga markaan maskaxdeeda aan ka shaqeysay maaha in la dhahay nimanka Soomaalidu way xun yihiin ama maaha men versus women maaha waxa waagi hore Soomaali marka qofku uu joogo wadankiisa uu joogo waxa haysata waxa la dhahay support system darisa leedahay macalina leedahay dad ilmihii waa lagu korinaa waalid cousins guriga waa la buuxaa markay ready inta laakiin waxa waaye because lifestyle-ka inta ka jiro iyo nolosha sida ay tahay iyo dadkii la soo kala qaxay gabadha iyo wiilka isqabo waa labadooda marka ninka waxa waaye inuu ogaado baahida Soomaali ka jirta tan inta ka jirto way kala duwan tahay marka hadduu intaas ugu fahmay in garab iyo looga baahan yahay caawinaad waxa umaleynaa nolosha way fududaa lahayd uma qaadan lahayn in dambi laga galaayo ama in la burinayo ama propagandadan roda warso noqon doonaa ciise iga raale wada guure khadka telefoonka ayaan insha Allah bilaabi doonaa hadii rab raali ka noqdo daawadayaasha waxaan jeclahay inay nagala qayb qaataan barnaamijkan fikradahooda ay noo soo gudbiyaan barnaamijkuna waa barnaamijka waaya qurbaha ku saabsan see guur ku nagaada waxaag aan isku day khadka ugu horeeya telefoonka inaan qabto halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولالكي فيصل وانك سلامي سلام الله سودو ولاله أحمد جوهر وي أحمد سودو آديات بنكو سودو وينيا الله يبارك فيكم أخي وانك سلامي أذيقا إيو مرتدى هذا قيمة بدن إن شاء الله تعالى سلام الله aad baan idinka mahadcelinayaa runtii barnaamijkan aadka u qurux badan leh hadartan online baa idinkala socday waxaan insha allahu tacaala runtii aan ku darsan lahaa dhowr qodob haye kolley siduu ku
nagaadaa guriga oo maaragtay lagu xifdin karaa guurkii ama gurigii lagu sii ilaalin karaa kolley waxay u baahan tahay runtii marka u horeysa walaalaha siday tilmaameen guur ahaan qofku laba qolaan hadda u kala saaraya insha allahu tacaala qola waa qolada dhalinyarada cusub sax qolana waa qolada hadda roon oo iyagu reeraha leh ama qaarkood waalidka ay yihiin marka dooduna si fiican bay u socotaayo waxay xataa sii aaday ilaa tarbiyadii iyo gurigii ay kusoo noqotay maaragtay waalidkii laftigiisii runtii taarikh ahaan markaad dib u fiiriso dhulkeenii markaan ka imaanaynay iyo dhulkan galbeedka ama qurbaha waxaan filayaa labo environment inay kala tahay laba wadci inuu kala yahay laba mentality inay kala jirto dhalinyarada qurbaha iyo galbeedka ku koray sibay wax u arkaan baynamaa waalidka ama dadka roon ayagu dhalinyarnimadoodii kusoo qaatay africa ama caalam alislaami aragtidoodu ay si kala tahay haddaan usoo laamo guurka runtii waxaan odhan lahaa labada qof siday ku jirtiin lahaayeen gurigoodaas ilaahay aayadda qur'aanka subxaana wa tacaala uu fi suurati rum inoogu sheegay laba qodob oo muhiima ayuu rabbi tilmaamay بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لما قضوا عجيبة على كل مودة هي الرحمة كالجعيل يو نحريس waxyaabaha saddex qodob haddaan tilmaamo qodobka u horeeya oo iska ballaaran mutual understanding labada qof inay isfahmaan waxaa la yidhaahdaa qolyaha waxaan ku jiraa hadda baaritaanka ku sameeya qoysaska maxaa keena maxaa sababa inay dadku qoysku inuu burburo waxyaabaha la tilmaamo waxaa ka mid a oo number one la yidhaahdo galbeedka gaar ahaan isfahan la-aan ayaa la yidhaahdaa walow laga hormariyo dhaqaalaha ama lacagta la yidhaahdo lacagtaa keenta ama incomekan keena in ay dadku isku dhacaan waxaa runtii aan odhan karaa waxyaabaha la tilmaamayo mutual understandinga labada qof inay isfahmaan maxaa u fudaydin kara inay isfahmaan waxaan odhan lahaa in ay isbartaan dadkan la isma barin wiilka lama barin gabadhu siday u fikirto siday wax u cabirto dareenkeeda siday u sheegto hadalladeeda ma yaqaano wiilka lama barin waxaas gabadha markaad weydiiso oo tiraahdo maxaan ku yidhaahdaa wiilkeed jeclaan lahayd ama wiilkeed raaci lahayd waxay isku dayay in ay ku tilmaanto sifooyinkii gabadhu ay lahayd maadaama waxa ay jeceshahay naxariis iyo kalgacayl iyo soo dhaweyn ay tahay marka caalamka raggana sidaan interviewyo horeba aan ku sheegay lagama yaqaano hadday tahay waxaan maqlayay raganimo iyo adayg iyo maaragtay protection iyo meelo kale ayuu ninku aadaa labada qof marka waxaan odhan qodobka ka horeeya inay isfahmaan gabadhuna inay fahanto ninku siduu u fikiraa siduu u dhaqaaqaa arrintaas waa arrin muhiima arrinta kale waa respect xushmayn labada qof inay isxushmeeyaan arrinta saddexaad oo kusoo koobaya wax weeyaan oo iyaduna bad ah ballaadhan waxaa weeyaan baahida gabadhu leedahay in la baro wiilka baahida wiilku leeyahayna in gabadha la baro laba baahi oo labadu duwan ayay leeyihiin isku mid ma aha isku baahi ma wada qabo masalan tusaale haddaan soo qaato ninku wuxuu u baahan yahay qiimayn inay gabadhu qiimayso waayo ego wax la yidhaha buu yaa jira oo uu leeyahay oo anigu nin baan ahay marka in ay qiimayso oo uu ka arko gabadhiisu inay qiimaynayso ninkeedii gabadhu waxay u baahan tahay waxa la yidhaahdo affection naxariis inuu laabta ku qabto inuu soo dhaweeyo yacni casharada aan dhigno ayaa ka mid ah dadku waxay kula wadaagayaan arrinta kale muhiimka ah runtii ee laga boodo waxaa ka mid a taariikhda qofka tarbiyadiisi meesha kusoo koray sidii loola dhaqmay waxaa door weyn ka ciyaara halayla ogaado qofka jiritaankiisa guriga uu dhisayo waxaa door weyn ka ciyaara tarbiyada lasoo siiyey sida loo soo koriyey dad badan waxaad arki in ay miisgareeyaan jacaylkii hooyada jacaylkii aabbaha
walidalik gabadhu haddii ay jacayl aynan soo arkin waalidka oo jacayl u muujinaya ama u naxariisanaya aynan soo arkin waxaa laga yaabaa in uu mid aan run u sheegaynin in uu intuu waan ku jeclahay yidhaahdo ay run moodo ay raacdo ninkuna sida oo kale haddii yani respect iyo ixtiraam iyo maaragtay qadarin aanan lagu soo korinin amaba hooyadii uunan ka arki jirin qadarinta aabihii ay qadarinayso hadhowta gabadha uu guursanaya labadaba ogaada runtii gabadhuna waxay raadisaa nin ay ka arki karto akhlaaqdii iyo dabicii aabaheed maadaama aabaheed uu hooyadeed uu u wanaagsanaa uu u fiicnaa wiilkuna sida oo kale gabadhu uu ka raadini dhaqankii hooyadeed laakiin labadu haddii labada waalid baan sheegay haddii aynan ahayn laba qof oo waxa midba qofka kale uu ka raadinayo qofka kale ayna lahaan jirin uu ka carari hadduu aabbuhu qaylin jiray oo bilaa naxariis u ahaa uu dagaal guriga ku maamada uu maaragtay dagaal ku samayn jiray gabadhu acuudu billahi min hada bay leedahay way ka cararaysaa markaa nin sida u dhaco axmed jawhar jazaaka allahu khayr kagamaga bogan karno khadka telefoonka keliya macluumaadka ballaaran eed na siisay runtii aad iyo aad ayaan kaaga mahadnaqaynaa waxaan jeclahay halkan inaan ka xuso kulley waxaan maraynaa codku dadka inta badan ma garanayaan laakiin axmed jawhar waa ninkii hadda dhawaanahan soo saaray youtube-yada ayaad ku arki kartaan barnaamijka la yidhahdo love challenge oo isagoo marwadiisii guddoonsiinaya hadiyad markaana baraya kalgacalka labada qof ee isqabaayay inuu xoogaysto inuu jiro inuu taabo galo ayuu ahaa aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaya tusaalooyinkaaga diiran caafimaadka qaba aad noo soo gudbisay waxaana jeclaha insha allah barnaamijyada soo socda adiga iyo marwadaaduba inaad nagala qayb qaataan barnaamijkan insha allah si toos halkaan uga bixi doona aan kusoo dhaweeyay jazakum allahu khayran wayaaka axmed asalaamu calaykum wax badan buu tilmaamay ma soo koobi karo axmed waxaa ka mid a buu yidhi in horta bal marka hore baahida inay isbartaan baahida wiilkoo barto gabadhuna ay barto baahida wiilka naxariis baa ka mid ahayd maxaad is leedahay markaa meesha bay ka maqan tahay isbarashadaas ukan haddaan kaga dhawaajino maasha allah wax wuxuu sheegay aad oo mataqaanaa analysis oo annaka aanan samayn karin uu sameeyey ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo waana loo baahan yahay isaga iyo xaaskiisa aadaan u jeclahay programkay sameeyaan hallo asalaamu calaykum calaykum asalaam waa hagaag walaal waad ku jirtaa khadka telefoonka barnaamijku waa barnaamijka waayaha qurbaha caawa waxaan ku qaadaa dhigaynaa dabcan waan jeclay inaad la socoto sababaha iyo asbaabaha au guurku ku nagaan karo maxaad tala ahaan aad kusoo kordhin lahayd wallahi dhexdaa ka soo galay horta kowdhe haye laakiin inantu hadasaan la kulma waa gartay inanku ku xige waay inantu hadalkii aa jira hadal aada u fiican bu ha kowdhe haye xaggaa wadankii markaad eegtay halkan markaad eegto labadaba ha dumarkunbaa gurtada carruurtii gacanta ku waay iyagunbaa la balaqsanaya meeshaad aragtaba sax meel walba iyagunbay nacaybiye wallahi layna arday horta kowdhe sax dumarkeenu waa dumar wanaagsan oo aada sharaf u leh waa gartay xaggii ragga wey xagga laga baay xaggan iyo xagga hadday joogo labadaba ay ruus sheegna moogtahay waay marka bal halka ay kaabtu inagaga dhacday ha aan baadi doon xaggan inagu baa qaxinayna halkan inagu baa carruurta yeli waa cidlo kaga cararnay kaga dhaqaaqnay maxaa iyada laxaaq baa ninka reerkiisu dhimaabu ilooyay aanu shaqadiisiiba garanayn waxaan arkay magaalo aan joognay markaa nin carruur baa arkay xashada iibinaysa maalin kowdhe waa gartay inanka ag taagna xashada iibinaaye waay markaa sheekadii wareegtay waxaa la dhihi aabihi iyo hooyadii sidii wadanka yimada sabalad bay ahaayeen waay inankuwa mu anaga aabihiisa oo guriga jooga haye maba la hadli kala dee hadduu la hadlana wuu maagayaa dawladda uu sheegaya uu ka baqanaya waa hagaag walaal marka waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo su-aal familiga problemku way nagu badan yahay haddaynu nahay ummadda soomaaliyeed laakiin waxaan caawa ka hadlaynaa waxa weeye qoyska cusub ee hadda u diyaara ama inuu reer yagaleelaan ama kuwa hadda uun bilowga ah si reerkooda ha u nagaado tibiska ama talooyinka aad siin lahayd maxay kula tahay in qoyskaygaas ha nagaado oo muddo dheer jiro ha waxa weeye labada qof marka hore inay isku kalsoonaadaan way isna aaminsanaadaan sax wixii ay isku guursadeen iyo wanaagii ay isku guursadeenna ka dhexeeyo oo muddadii ay sahayo waa gartay waa naf qaybsi moogtooda qaybsanaya labada qof sax
ومستقبل واقعتي marka wali xalaalaha ayaa odhankii ka baxay waa bakayla qaleen ay yiraahdaan aad iyo aad laakiin haddaan nin baa hoo fuqu taagan tahay reer laga iska guursado ha idaa wuxuu kala qubanayaan waa hagaag walaal aad iyo haddaan tala anigu iska wata aan iska leeyahay iyadii la tashanin ha wuxuu waa kala qubanaya waa iyadii la tashaday laboolad maaha gabadha la tashadaa waa hagaag walaal aad iyo aad ayaad mahadsan tahay fikirkaagaas khadka telefoonka oo aad u badan ayaan insha allahu tacaala aan u gudbi doonaa haye dad waxaan wax yar arba inaan ku darsado oo very important mahmahdan Soomaaliyeed oo la dhahayo run kusoo xerageli been ku dhaq aniga waxaan dhahaa run kusoo xerageli lagoysmana ku dhaq because waa la ogyahay qof been loo soo sheegay oo nolol been laga qaaday hore ma usii socon karto marka taasaa la baahan in la saxo runtii horta raggii soo hadloona aad bay u mahadsan yihiin hadalla wanaagsan inay wada taabteen faysalow siday ila tahay horta waxa lagama maarmaanka ah waxay tahay in la istixgeliyo la ixtiraamo furaha taas keeni karana waxay tahay qofku marka koowaad inuu horta yiraahdo nolosha anigu maxaan ka damacsan waa inuu horta qofku qorshe samaystaa sababta uu guursanayo waxa uu uga baahan yahay waxa isaga looga baahan horta waa inuu kala cadaadaan qofka bani aadamka ah after intaas noloshu markii dee muddo ay socoto ma laga waaynayo wax carqalad ku ah iyo wax uun yimaada waa in qofka bani aadamka ah naftiisa ka dhaadhiciya siduu dulqaad u samayn lahaa sidii uu wax uga tanaasuli lahaa wiilkii gabadha kay noqotaba dadku weligeed bay isa soo qabanayeen dadkii ahlu cilmiga ah isa soo qabanayay dumarkii rag weligood u islayn jireen laakiin haddana waa la isku tanaasuli waa qofka waa la dayn lahaa waxa la leeyahay ma aha hayabal waaya marka dadku hadday rabaan in ubadkooda wanaagsanaadaan horta waa in ayagu waxyaabo badan iska cafiyaan waa inay noloshooda ku saleeyaan sida ubadkooda u wanaagsanaado diinta inay ku beeskareeyaan ku saleeyaan waa in qof waliba oo isku dayaa horta qofkani muxuu kaa mudan yahay inkastoo aanay ila wanaagsanin in la gorgortamo la dhaha anigu ninaan ahaa intaas ilaahay xaqiisii iimays adigana intaas xaq u leedahay of course qof walba wax ilaahay u xaqeeyaa jiro laakiin ma ka sii fiicno haddii qofkan intii liisiyaa in ugu darto adigu dee aad mar kasto naxariis qof in la isbarto oo qofka la barto waxa uu qofka kale xaq u leeyahay ka mid yahay aad bay muhiim u tahay ixtiraamkuna waa muhiim de waxaan isku daynaa haddii uu daawadahaas ku jiro khadka telefoonka inaan isagana fikirkiisa aan ka faa'iidaysano haddii uu ku jiro halo asalaamu calaykum calaykum salaam haye walaal kusoo dhow barnaamijka waad la socday soo maaha faysal waa idin salaamay horta saddexdiina dhalinyarada ah oo fakarka fiican la soo fariisay caawa meeshaan aad baan horta idin salaamaya aad iyo aad waa kaa qaadnay adoo magacaagana nooma aadan sheegin waan jeclaan lahaa inaad noo sheegto magacaygana aad baad u garanaysaa horta waa nin la yidhaahdo axmed warsane oo had waagii horena shaqa aad wada qaban jirteen waagii dambana aad is arkaysiiseen oo tv-ga isku aragteen oo istaan marka shaqaynayay aad iyo aad waa ku fahmay axmed soo dhow walaal aad baan kusoo dhaweynayaa raggii idmitoonna waa isla ahayn si fiican waa ku gartay haye waxa weeyaan horta aad iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamij loo baahanaa run ahaantii oo aad loogu baahnaana waa keenteen dad dhalinyaro ah oo aan aad u jeclahay oo runtii hadalladooda aad u qiimeynayana waa kula fadhiyaan waana dadka loo baahnaa in dadkaan oo kaleeto lasoo fadhiisiiyo tifiyada oo ka hadlaan marka labadooda waxaan rabaa horta inaan wax su-aalo marka u horeysa anigu nin odaya aan ahay ilaa sanadee weyn ku jira insha allah xaas iyo xaruurna leh muxuu ahaye ilaahay siiyey si fiican ugu soo dhaqmay oo maanta aan sallay ka qabin dhaqankayga aan aadna u jeclaan lahaa macnaha inaan xataa soo fariisano aniga xaaskaygu sidii raggii hore aad ugu ballamaysoo kaleba tv-ga waayo waa dhaqankii dalka ama dhaqankii dadka waxaa la celinayaa waxa weeyaan dadkii hore in laga faa'iidaysto dadka yaryar loo faa'iideeyana aad bay u fiican tahay run ahaantii waxaan aad u jeclaan lahayn dhalinyaradaas oo kaleeto iyo dadka waaweyn oo iyaguna iswato isjecel oo dadka maanta ehelka isku ah sida xaaska iyo odadeeda isjecel oo kale in maalin kasta la keeno tv-yada qolada birinayso habeenkii tv-yada ka caytantana si ay ugu quus qaataan aad baan horta u jeclaan lahaa waxaan rabi lahaa marka labadooda inaan wax su-aalo labadooda maxaasba mase xaas maahan horta labadooda waa inaan su-aalo aad baan u jeclaan lahaa labada qof oo dhalinyarada maadaama ay xaas yihiinna oy xaaskii hadda hayaana dadkaan u jeclahay inay iyago xaasa meesha soo fadhiistaan haddii aan ciida kale usii galo su-aashaas intaysan iyagu ka jawaabin aan hoos usii galana waxa weeyaan
ragga iyo dumarka markaan anigu miisaamo oo aan miisaan saaro ragga iyo dumarka ragga khaldan waayo waxa weeyaan qofna mas-uul baa laga yahay qofna waa qof mas-uul oo ilaahay ku aaminay mas-uuliyadda mar haddii mas-uuliyadda adiga ilaahay kugu aaminay oo nin kaa dhigay oo qofkan gurigoodii iyo reerkoodii iyo adiga markii lagugu soo darayay mas-uuliyaddeeda aad soo qaaday oo lagu yidhi adaa ka mas-uula aabaheedii hooyadii markaa kasoo kaxaysanaysay inaad cidla ku dayacdo aad bay u xuntaa bini-aadamka waa ku jiraa qof xuni qof dumar oo xumeeya waa isaga jira oo la hayn waayey laakiin majority marka la fiiriyo dumarka iyo ragga qurbaha aan joogno marka la fiiriyo waxaa gardaran oo dhibaatada aan saarayaa inta badan waa dumarka waa ragga sababtaan u saarayana waxa weeye annagu dumar baan qabnaa ismana qabanno boqol laba miisoo dumar bay qabtaa isma qabtaan ninka iyo dumarkii gabadha xaaskiisa oo isqaban oo aan isqabanin waa labada qof oo sida gabadhu sheegayso sheer ku ah shaqada waayo waddankayagii ma joogno laakiin haddaad inta ka qabto tiraahdo hawshii guriga iyo xamar markaan joognay shaqadii aad qaban jirtay qabo ma qaban karto gabadhii waxaa laga rabaa iskoob waxaa laga rabaa inay aado inay shaqo qabato axmed walaal aad baad maasanta aan kaa dhex galo barnaamijku soo caaw wuxuu ku saabsanaa asbaabaha keena in qoyska ama guurka uu nagaado dabcan saan ogahay nin aad soo jiraan ayaa tahay maasha allah reerkiisuna dee muddo jiro marka waxaan jeclaan bal raggii kaa horreeyey waxayna siiyeen tibis bay bixiyeen si caawa lagaga faaidaysto waayo aragnimadaada waxaad kusoo koobaysaa marka adiguna insha allah iyadoo khadka telefoon waan kusoo koobayaa waxaan kusoo koobayaa burburka waxaa keenaya burburka horta waxaa keenaya oo ugu weyn waa isfahanka labada qof ee meesha joogta ay isfahmi laayeen oo ay qaarna u fakarayaan dee dumarka iyaga soomaaliyeed dhaqankii xagga aan ku haynay iyo dhaqanka halkaan baa iskeenila labadii dhaqan baa iskeenila oo waxa weeyaan hawshii guriga laga hayay oo xagga markaan deganayn iyo hawsha halkaan marka la joogo guriga laga hayo ayaa iskeenila sidaa awgeed baa layskaga hor imaanayaa semberi waxaa kale oo layskaga hor imaanaya haddana dhaqaalaha waxaa hayn jiray ragga markii waddankayagii la joogay hadda dalkaan markii la yimidna dhaqaalihii baa gacanta ku dhigay dumarkii oo waxaad moodaa dhinacii dumarku inay dhaqaalihii u badan yihiin marka ayaga ruuxoodii may aamini karaan ninkii oo hadday dhaqaalihii ay ku aamini lahaayeen oy odhan lahayen waa dhaqaalihii noo qabo dee ayagana wax kalaa ku xidhan ayaga ruuxooda bii kalaa ku go-ano waxaa laga yaabaa inay si kale u fakeraan marka waxaa yimid isla sheekaysigii labada qof laakiin burburka waxaa keenaya inaan la is-aaminsanayn in la is-aamino baa ka horeysa in reer dhaqmo labada qof markay is-aaminaan bay reer ku dhaqmi karaan marka waxaan leeyahay hal la is-aamino ragguna waa qaldan yihiin dumarkuna waa qaldan yihiin waxaan ogahay raggu inuu aad iyo aad marka fiiriyo mas-uuliyadda xataa maanta lama hayo nin soomaaliya oo wiil jamaicaana iyo wiil soomaaliya walaala ka dhigay lama hayo hadda taariikhda kuma hayno laakiin waxaan taariikhda ku haynaa gabadh soomaaliyeed oo wiil jamaicaana iyo wiil soomaaliya walaalaysay oo iskugu keentay meel marka waxa weeyaan xoogaa waxaad moodaa dhinacaas dumarka iyaguna inay iska waansadaanaan oy iyaguna aada iska waansadaan raggooda rag u dhaama aysan jirin dadkooda dad u dhaamaana aysan jirin oy maaragtay dhaqankoodii iyo maaragtay wanaagoodii iyo diintooda kadib bixisa diintana hala qabsado dhaqankan xagga yaallana halkaan yaallana xagga hala iska dhigo mid ragguna ha qabsadeen dhaqanka halkaan yahay insha allah waad mahadsantahay aad baan kaaga mahad celinayaa axmed fikirkaaga aad naga qayb qaatay barnaamijka waana soo dhaweyna insha allah adiguna su-aasha ahayd isfahanka iyo inta badan odayaashii hore inaga horreeyay ku celcelinayeen isfahanka maxaa khaldan baad isleedahay marka niyo waxaa khaldan wax badanaa khaldan kow horta waxaa khaldan bee-ada ama environmentiga dhulka aan soo galay ayaa waxaa ka bedelan dadkii micnihii xagga nolosha kusoo bilaabay halkan markay yimaadeen sida halkii dee halkii kasii wadistii ayaa waxaa xoogaa iskeenila dhaqamadii iyo xushmadii iyo kala dambeyntii xagga iyo halkan sidii tahay waxyaabaha aan ku qiyaasay inay kow ka tahay ragna waa ka dhawaajiyeen sidaan u malaya waxaa ka mid a abaayin inay sheegtaan u malaya reerkani wax badan oo dee xagga marka la joogo gabadha haddii ilma yimaadaan wiilka walaalihiisa habtiyaashii dee cidla meesha ma jirto laakiin halkan waa labadoodii uun iyo guri waxa laga yaabaaba eriyada dhanba inay caddaan madow xataa inaanaba la deganayn isagii marka waxa looga baahan yahay horta ninka inuu wax badan gabadha garab siiyo adeega ka caawiyo la sheekaysta ilmaha guri kula sheekaysta xoogaa halkii dee waqti badan geliyo marka waqti badan banaanka ku maqnaashihiisa ayaa horta nerfis ka imaan karaa waxyaabaha kale oo aan isleeyahay isfaham darrada inay ka yimaadaan waxaa ka mid a dhaqaalaha naftiisu qeybu ka yahay oo dee dhaqaalihii ayaa laga yaabaa inuu qofkii haddiiba uu markaa nin ragahooba shaqaysto reerkii u shaqaystay inuu asaga ku fikiraayo kiiba nin wanaagsani
bal wax uun intaad isku kuuskuusto mar uun maaragta xagga halkan lasii joogi maaye وزع cariirigaa la galay ee waxaa yar la ururiyeyna reerkii dhinaca kale marka loo fiiriyo maadaama aan la talagelinba gabadha laga yaaba in looba sheeginba oo still oo ninkiis leeyahay dee anaa reerka ka mas-uula wax baan u ururinaya وزع haddii goor dambe xataa ay ka warashay inuu ninkani guri gadayo ama uu wax meel ku wada waxa laga yaaba inay negative u qaadataba ay tiraahdo sheeko kale xaga ka socoto miya oo dantii reerku lahaan lahaayeen inaan la istalagelin daraaddeed wax u xumaadaan isaguna hawleeyo mustaqbalka asagoo inuu ka fikiraa laga yaabaa ama cagsigeeda inay gabadha nafteydu inta ka yaabta odogii dee qoyar socodnimadiisa iyo meelo ayadii maaragtay waxyaabaha hoose intay gashay dumar wax isku darsan waxa yuutay wax la yiraahdo bir dhax oo ka warhelo naagtii oo halkaas marayso isagii furka tuurayso anigu ma ahayno dee markii la soo koobana danay ahaan lahayd guud laakiin inaan la isku sheegin ayaa dhib keeni karto aniga waxaan rabay inaan ku darsado adoo iga raali storyda u sheegta waa ka helay waa laakiin positive spin ku samaysay maalin kasta waxaan aragnaa oo ama organization ha noqoto ama waxaan ku shaqeyn jiray shaqalink work la isbitaalada la shaqeyn jiray hooyadii Soomaaliyeed kaligeed socoto waxaa la arkay oo loo yareen aan marar ugu turjuba aniga personally hooyo ma taqaanaa in la qabo oo ilmo haysato oo ninkeedii nin shaqaysto lacag haysayo uu yahay laakiin rabin reerkiisu inuu biisho sheekadaasna waa sheeko aad u badan oo haddana markii public arenada hadalka la keeno laga dhigayo wax ma taqaanaa ee haweenkii iyaga rabaan ayuuta inay galaan the simple truth waxay tahay runta haddii rabo inaan maqalno oo wax la kala faa'iidaysto in badanaa nimanka Soomaaliyeed ay diideen mas'uuliyadda Ilaahay saaray which is very simple way inuu reerkiisa biisho ani ahaan haween ahaan haddaan nin ahalayaan xaaskayga iga diido anigoo lacag haysta inaan biishto ama inaaba isu sheeganaba aan mataqaana dawladda u tagna inaan nin iyo naag isqabo oo xalaal isku qabo reer le aan haddii iga diido ilaahay anigoo leaderka iga dhigay waa inaan taf ahaada oo whatever mataqaana jid markaas ii furan inaan aniga ka sameeyo maxaad sameyn lahayd hadday tan oo kale dhacdo because fiiri waxaan sameyn lahaa haddaan aniga aan nin ahaa lahay and I like su'aalaha ay weydiinaysa because you're coming from a zaman and I thank you for that laakiin waxa waaye reality waxa waaye haweenka haddii xaqooda la siinin ummadda dhanaa baaba'ayso because markay hooyo dhibtooto kaligeed ma dhibtoonayso waxaa la dhibtoonaya caruurteeda 2 3 4 5 intaas oo nafa baaba'ayso haddii lacag la'aan lagu rido intaas oo nafa baaba'ayso haddii qalbad xumo iyo calool xumo lagu rido ilmiye ka go'an tahay marka reer kasta markuu soos u burburo bulsho waxay ka dhismataa several families isku tagay waxay noqdeen bulshad iyo ummad marka waxa loo baahan yahay intaan anaka wax kor ka soo dhigayno inaan runta isku sheegno hoos aan ka soo dhigno oo wiilashii loo sheego mas'uuliyadoodii oo gabdhaha ma taqaanaa Europe ku nool reputationka xitaa waa lagu dheelay oo waa ognahay markuu ninka inta lacag aruursado diida xaaskiisa inuu biishto person waxa uu aqaan gabar degan magaalo Bristol la dhahayo say nabad u haayeen ninka lacag u aruursaday wuxuu yiri wadamadaasaan aadaya gabar kale la guursaday isla magaalada dhexdeeda dumarka nagu soo kicin may abo you need to hear the truth and that's why I'm here fiiri haddana runta sheegin aniga waxa waaye I do this service to myself iyo haweenka aniga maalin kastaan caawiyo marka waxa waaye gabadhii waxay noqotay naxtinta ay ka naxday cala daraadeed way waalatay in meher waa laga kaxaysto waxa loo geeyay reerka cusbay waa la qaado waxa la geeyay mental health institution la geliyay marka dad muslim isku sheegayna say ku dhici kartaa ninkaas markuu qaladka galayay ummadii kale aawe wadaadada aawe familigiisa aawe kuweedii aawe bulshada kale aawe dariska aawe ani markuu waxay la tahay runta ready ma u tihiin bal aan topigan iska xirno aan kala hooyano ama runta sidee tahay aan isku sheegna because haddii runta la isku sheegin waxa way iska dhaaf anaka xitaa community-yaasha kale aan arkeen oo na weydiiyo dhaho nimanka Soomaaliyeed aawe and every single Soomaali hooyo aan la hadlane waxay ku leeyihiin hooyana oo in ilmo ma sheekada horta hadii la emotion hadii macnaha laga dhigo ma emotion inay noqoto waa loo baahan yahay because aniga markaan imaanay interview waxaan dhahay haddii aanan runta aanan sheegin I'll do this service to myself iyo hooyooyinka Soomaaliyeed rooda aan ka dhex galo barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay si qoys burburay inuu kama hadleen hadda waxa kale si qoys burburay dib taalaad ka hadlaysaa laakiin waxaan ka hadlaynaa xaqiiqdu waxay tahay
dadkii dhalinyartii yaglaal diyaarka u ahaa inay reer yaglaal inay reer dhisaan iyo kuwa hadda bilowga ah si aan uga badbaadinay dhibtan aad sheegayso dhibta shay laakiin fiiri kaas inoo taabo qodobada inoo taabo solution fiiri problem markii xal loo helayo waa in root cause-ka dhibaatada jirta ka hor la ogaadaa lana qirtaa annaka waa ognahay laakiin qirashada reedi muunihin waa qabyaalada waa ognahay Soomaaliya asbaabina isnicibnahay laakiin reedi muunihin ina iswada cafino oo iswada raali gareyno marka waxa waaye anigoo iga ahan emotional waxa waaye hadii walaalayaal runta la rabo inta la ogaado and because culturally Soomaalida hadda laba qof haday istagaasho qofka Soomaaliga iyo culture ahaan waxa loo heliyaa qofka gardaran oo qaylada badan looma heliyo maskiinka arintan oo haweenkii ragga ahna waxa waaye ragga loo heliyaa haweenka looma heliyo because waxa waaye dhibanihi iyada ah meesha tan kaga baxay horta sheekadani haddii macnaha waa jansa haddii la yaa gardana yaa ka dhaca horta waqti badan aan ugu qaadanaysa inaga nafteena waxaan ognahay rag badan oo shaqaysan lahaa oo ilmahoodii familkooda inay iyagu wax xalaalo iyagu shaqaysteen siiyo ku maaragtay raba in reerahoodu ku kulifaan mayo wax yaroo soo shaqaysa dee lagama shaamshaamka lama yeeli karaa iyo fasax inan maaragtay ayuu taysto inta ka dhaco aan macnaha anigu aan dowladda wax ka qaato yani waxaas waa iska badan yihiin marka muhiimaddu waxay tahay hadda haddii tubiga caawa aan galan yiraahdo ma ka dhamaanayno waa xanuun badan tahay run anigaygaanu hoos u sii dhaadhacno laakiin anigana waxaan ogahay Faysal waxaan ogahay nin dhalinyaro shaqaysto oo muxtarim oo la ogyahay oo familkiisii ay ku cadaadiyeen ku buushkareeyeen in uu separate kala qaataan iskala qoraan guri kala dago waa islayna dhaw si gabadhaani wax uun ay u hesho macnaheedu mid iyo laba ma aha cagsigeeduna wuu jirin karaa laakiin su'aasha meesha taala waxay taas kulli hadda waxaan ka hadlaynay sidaas sheegtaba bal kuwa najaxay sidii ku najaxeen kuwa najaxay waxaan u malaynayaa inay ku najaxeen inay istixgeliyeen wax iska dhageysteen qofba qof kale ixtiraamay tusaale yar haddii aan dib u laabano ilaaha ka raali ahaadeen nin saxaabiya ayaa gurigiisa islaantiisa xoogaa ku yaraa inuu wax u arkay inuu ku buuq badan tahay sayid cumar radiallahu canhu oo xilligaa talinaya cumar bin khadaab ayuu isiri bal aad u dacwoodto tiraadeed niyo asaa ileen ninkii odagii ahaa niyo bal dhibtana ay haysata to wax diinta ku qoran marka ninkii wuu soo baxay cumar gurigiisu imaaday xilli habeen yar madow ahayd asoo dhahaya bal ku yara garaac oo wuxuu maqlay hadal taagtaagan oo soo baxaya dhegtuu la raacay wuxuu arkay dee reerkii oo isku taagtaagan oo gabadhii hadalkiidii wixii buu maqlay markuu maqlay wuu iska laabtay asoo gurigiiba garaacay cumar dee nin dhiifan buu ahaa saxaabi aad u dhiifan buu ahaa macnaheedu wuxuu maqlay shanqadhii laabashadii marka albaabkii u fayday wuxuu arkay qofsii noqonaya wuu waco kaale maxaa ahayd uu yiri maxaad la socotay maxaad la laabatay wuxuu yiri niyahow ashtakaan ahaayo reerkayga in islaayna ka baqay marka dee maadaama aad khaliifkii ummadda tahay aslahay markaan waan arkayba adiga gurigaadiiba sidaa leeyahay ayaan quustay wuxuu yiri marka fiiriyaa xigmadda macnaha ragga dadkaa wanaagsanaa ee asxaabta ahaa ee ahlu sharafka ahaa iyo hadba si u kala dambeeyeen in xoogaa lagu daysadaa fiican waa eed aan raggii saarayo gabdhahana dee iyagana waa dhinacooda wuxuu yiri dhegay soo dhawaabuu yiri haye halaha yarood arkayso iska ilow intay ii hays oo needhiskayga ama baahiyadayda ay dabooshay ayaan tiro lagu dayno dharka ii dhaqdaa ilmihii ii haysa disa ii qabataa yani wixiiba u tiriyey wuxuu yiri waxaasoo dhan saacad qura kama soo dhammaan kara anugu marka wuxuu yiri taa u qaban maayo ninkii kale asoo qanacsan saxaabigii kale ayuu iska tegey marka dee sabarkana waa loo baahan yahay oo qoftiiyo ayada nafteeda ilmahaadii neerfis ka dhigeen oo saanahoo wax iska yani ayadiiba si ah inuu macnihii asagiina iyo neerfis ka sii dhigan ma aha aan daawada xiga aan fursaddaasi halo salaamu calaykum calaykum salaam halo waa ku maqlay walaal si fiican soo dhow haye walaal waan islaamaya wax ayaan baa la yidhaha waxaan deganaa Norway haye ayaa soo dhow walaalo kale aniga sidaan qabo maaragtay waxaan wax kasta ilaahay markuu jideeyay wuxuu u sameeyay diinta islaamka marka in lagu kala baxo kulli de ninkii waxa jirta waxa la dhaxo xuquuq soo jeed oo ninka iyo naagta isqaba isku leeyihiin inay kala dambeeyaan haddana ilaahay wuxuu dhahay al-rijaal qawaamiin cala nisaa oo ninkii waxa laga dhigay mas'uul koonkii dhan maaragtay inuu naagtii la tirsado inuu naagtii waxa qaada tanay tahay al-mas'uuliyadiisa inuu ka soo baxo gabadhana de inay ninkii maaragtay ay ixtiraamto wadamada reer galbeedka markii kala imaaday ninkii ixtiraamna waxa laga yaabaa gurigiisa markuu yimaado second ilaahay guriga wuxuu ku tilmaamay guri lagu dago lagu nasto buu dhahay inuu yahay gurigu
واقعتي marka waxa laga yaabaa ninkii markuu gurigiisa irinta ka soo galo inay gabadha isku qurxinin inay soo dhaweynin inay maxaan ku dhahay ilmihii asaga is marxabaynin ninkii marka wuxuu dareemayaa de guriga awal baad adeeg marka qofkana maxaan ku dhahay waa laga maalaa waxa maadaama uu mas'uul yahay haddana mas'uuliyadii marka qofka wanaag ku maashid wanaag baa ku helaysaa laakiin marka tiraahdo muxuu ii sheegayaa waa inuu iska kayfraa wadankan waxa waaye qof walba waa free oo power buu leeyahay wixii moogtay naagtina waxay noqonaysaa ayadii baa qawaamiin noqonaysaa ninkiina qawaamnimadiisa waa baaba'aysa marka kale ani waxaan qabaa shareecada islaamka haddii lagu wada dhaqmo oo ninkuna xaaskiisa ka dambaysa asna ka dambeeyo marka khasab horumar waa la gaaraya ilaahay aslada saaratid marka waxaad leedahay ayaan waxa weeye waa respect iyo tixgelin iyo kusoo ururaysaa hadda ها waxaaba jirtaba dam xuquuq soo jeem buu ilaahay marka hore sameey ninkan muxuu xaq ugu leeyahay waa ninkaagii waxa waaye wax qiso waxaaba jirtayba faysalow ninba oo dadka sixirka sameeyo ah marka naag baa u imaaday wuxuu ku dhahday inaa ninkayga jeclaysiin sidaa rabaa marka wuxuu ku dhahay libaax u tag 10 oo timood ka soo jir korkiisa marka waxay dhahday waa khatar ma la sameyn karo laakiin xal kale ma la heli karaa may buu dhahay dad bay la tashatay waxa dhahay libaaxa waxa sameeyay hilib u soo samee maxaan ku dhahay ugaar u soo dil adiga waqti badan bay siisay juhdi bay gelisay markii dambe libaaxi wuxuu sameeyay inuu jiifsado in korkiisii ay taabato oo maalin kasta ay laba tin ka soo jarto marka ab 10 tin ay soo jartay ninkii u keenta wuxuu dhahay ma soo jartay ha oo libaaxa seetimaa uga soo jartay libaaxa waan maslaxay waqti bay ugu qaadatay marka wuxuu dhahay ninkaagii libaaxa yaa dhib badan markaas waxay tiri libaaxa khatarsan haddaba aniga waxa aaminsanahay dumarka hadday ninka ka maalaan rabbiga kow abuurtay talada saaro ilaahay bari inuu ilaahay ninkaaga ku hagaajiyo marka ninkaaga ilaahay baridid adiga waxa noqotaa taqiyad ilaahay ka baqda marka rabbi kow adiga ka baqdid wuu ku caawinaya kuma dayacayo waxa ka baridid wuu ka yeelaya ilaahu ninkayga ii hagaaji kadibna dee libaaxa nimankeena kama fiicna libaaxa khatarsan marka korka u salaax bari maslax marka wuu ku hagaagaya ninka insha Allah bismillah kareem aad iyo aad ayaad mahadsantahay ayaan fikirkaaga caafimaadka qaba waana soo dhaweynaynaa maxaad u diri lahayd ayaan hadriyadaas may walaasha khayr Allah siiyo way mahadsantahay wax oo hadal saliibna way sheegtay laakiin aniga sida ila tahay mararka qaarkood dhibaatada dhacdo waxa waaye qofka bini'aadanka markay kuu sheegatay ku dhahdo dhib ay haayo oo aniga maalin kastaan shaqadeydan ku arkaa gabdhaha markaan la sheekaystaan arkaa gabdhaha markay waan dhibanahay dhibaana lagu hayaa xitaa enough respect oo lagu dhageysta ma nala siiyo media markii la imaado markii fadhi ku diri la fadhiyo markii guryaha la jiro always waxay noqotaa boxing match I think waxa waa muhiimada ugu weyn oo number 1 ay tahay qofka dhibkiisa saa og aniga maanta nin intuu soo baxay ima sheegi karo midii karo this is how it feels to be pregnant because waa nin uur ma yeelan karo marka waxa loo baahan yahay number 1 talaabada ugu horeyso hadii la rabo xal nin la helo bal in la dhageysto haweenka mararka qaarkood waxaan arkaa haweenka iyagoo reputation-kooda markay dhib ka hadlaan lagu dheelo oo la dhahayo waxay noqdeen gaaladii ku daysadeen saani ku daysan kan ilaahay subxaanahu wa tacaala haweenka xuquuq wuxuu siiyey ka badan kan ninka oo sharaf ku dheehan naxariis ku dheehan oo because ilaahay isaga humanka create garay wuxuu ogyahay markii naag loo naxariisto oo la koolkooliyo oo la wanaajiyo inay ummadda dhan wanaag ay fiicnaanayso and that's why waxa dhibaatada dhan Soomaaliya haysato ay salka ku haysaa waa abuse-ka dhibaatadan ku hayna haweenka waan mahadsantahay horta abuse-ka islama qabno anigu waxaan aaminsanahay waan yara diidanaa inaan topic dhinaca ugu fogaano laakiin waxaan horta aaminsanahay gabdhuhu khayr Allah siiyo waa gabdhaheena Soomaaliya sharaf bay naga mudan yihiin laakiin intooda ay ka yara jiiraysan tahay horta qaar badanaaba waxa laga yaabaaba inaanay u dareensanin in mas'uul ayaga laga yahay oo de isa siinaya awoodaha halkan ka jira iyo waxa dimuqraadiyadda la yiraahdo iyo waxaas oo inaas marka la isku daro yar hilmaansan in horta mas'uul ayaga laga yahay macquul inay ku koos gareyn karto qaarkood ninkiiyo isaga qudhiisu aan wixii looga baahnay sii qaadin laakiin haddana stage in la gaarsiiyo aan looga baahnayn ayay mararka qaar gaarsiiyaan tusaale reer markuu isku dhaco siyaabo loo xaliyaa jirto halkan xalka ugu degdegta badan waxa waa in la dhaho ka dhaadhac iridda deg marka waxaa arkaysaa
buuqa koowaadba markii la buuqo de qaar fiican dadka o dhan ma ka hadlayna inta dee awooddaas yar ku faantaan aan ka hadlaynaa moogtahay ninkaadii ilmahaada aabahood ahaa ee ilmahaadii qudhoodii dee ay eeganayaan waxa aad samaynayso haddaad mar dejiso ood mar kala dejiso ood mar kala dejiso anigu waxaan isweydiiyaa reeraha dadka 10 8 7 mar la dejinayo haddana adigu 2 biri ka bacdi inta la isku soo laabto soo noqonaya gabadhu maxay yani u keeni laadahay waxaan wax lagu dejinaya hal ka bedelan dhinaca kale odagani 10 mar amba 6 mar la dejinayahay waxa lagu dejinayo ee de haddana uu biri ku laabanay muxuu uga waantoobi laayahay marka dawaad ogtihiino qaar badan buuqa waxa lagu xaliyaa in la dhaho wax isku sheegayna ma moogtahay marka kuwii hore u kala tagay isfahmi waaba garan laakiin kuwa haddana isku soo laabanaya ma ay samaystaan nidaam la yiraahdo bal qaladkan oo ka bax iridda iyo haddana soo laabada ah sidii looga hortagaa maxaa khaldan oo reerkan de ilaa sidani ma fiicno waa tii diintu leh labada qof ayagoo isku xanaaqsan haddii kala seexdaan dee lama amaanin moogtahay marka xanaaqan joogtada oo maalmo lagu kala maqan haddana la soo celinayo oo ninkii deg leh xataa sharaf dhac waay marka wax badanaa runtii u baahan in saacad iyo 2 saacadood midna kuma gaari karo topican haddaan sii dhex galno gabagabadii ugu dambeysay ayaanu taagannahay barnaamijkan waa soo afeeray insha allah madhow kelmadda ugu dambeysa maadaama uu ahay su-aasha sidee guurka lagu badbaadiyaa laakiin waqti badan aan ku dhuminay sababta u burburo I think waxay la tahay aniga kowga hore aasaaska in laga bilaabo la koriyo gudoomiyaha iyo mataqaana leaderka tomorrow ama reer ha ahaado ama bulsho ha ahaado ama dowladda ha ahaado kaas kowga hore in la koriyo number 2 xaquuqda iyo mas-uuliyadda iyo xaqa badanaa waxaa waay xaqaa la sheegaa oo haweenka lagu leeyahy laakiin mas-uuliyadda ragga in la baro intaysan guurka gelinbo midda saddexaadna waxay la tahay in cultureka soomaaliyeed oo ku salaysan culture heer guuraa because annaka muslimana qofku markay muslim tahayna waa diinteeda inuu dhaqan u yahay marka cultureka waxa wanaagsan waa laga qaadan karaa laakiin wixii xun it doesn't serve as any purpose inaan sii wadano oon annaka iyo ilmaheena iyo jiilka jiilba ka dambeeya uu ku baaba'o marka wax xun in laga tago oo diinta oo ku salaysan macaanka iyo naxariista iyo kala dambeynta in mataqaanaa taas laga dhigto dhaqan wahag ciise dirow odayguure iyo rooda cali ayaa barnaamijka igala qaybgelayay barnaamijkii waayaha qurbaha oon caawa ku qaadaa dhigaynay sidee guur ku nagaadaa mustaqbalkuna ugu dheeraadaa oo dabcan sidaa hirooda kaga dhawaajisay liidarkii ama hogaamiyaashii berito say kusoo baxaan barnaamijkii waayaha qurbaha ayuu ahaa anoo faysal aadan miicaadana waa idiin soo diyaariya halkana waa idin kala socodsiiya kaamarada farsamada waa maxamed cadaawe dhammaantay intaan ku kulmi doono barnaamijka xiga haddii ilaahay yaraado toddobaadka soo socda waxaanu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu